السلام عليكم صاحبي الكسو دوادا halkan waa macadka barashada iyo cilad bixinta kombiyuutarada Sikor magacay waa injineer Cabdiraxmaan Cabdalla oo idin daadiin doona casharka koowaad ee Excel. Excel waa spreadsheet ama software loogu talagalay in lagu xisaabiyo xisaabaadka kombiyuutarka. Xisaabaadkaas waxay isugu jiri karaan xisaabaad daily task ah ama bilo ah ama maalinle ah ama sanadle ah ama xisaabaad normal ah oo sida calculation-ka oo calculator-ka lagu sameeyo oo kala. Excel sidoo kale waxa loo yaqaan magaciisa waxa waa spreadsheet ama waxa loo yaqaan workbook intaba waa magacyo uu leeyahay waa Microsoft shirkadda loo yaqaan ku taala Los Angeles California wadanka Mareykanka ayaa iska leh Microsoft tool kamid ah waaye Office package-ka ay leedahay midkaan darasi doonaan baran doonaan waxa waaye Office 2013 suite-ka uu kamid yahay so wuxuu ku suurgelinayaa inaad ku store gareysid data numeric data inaad ku store gareyso ku suurgelina si loo soo kiciyo Excel-ka halkaan aad tagaysaa start menu waxaad ku qoraysaa Excel sababta halkaas uu ku soo baxaa hadii Office uu kugu jiro marka hore dabcan casharaadkan soo marnana Word oo kale hadii kugu jiro Excel waa qasab maadaama Office package isleeyihiin oo ku jira marka halkaas oo ku dhufanaysaa so marka uu ku soo kaca dhowr qaabada loo soo kicin karaa waa naqaana saan oo loo soo kicin karaa si kale loo soo kicin karana waa jira oo sida Word oo kale loo soo kicin karaa inta right click tiraahid ay xadii kartaa new waxaad ka sii dooranaysaa Microsoft Excel spreadsheet so saasna u soo kicin kartaa marka dhowr qaabada loo soo kiciyaa Excel-ka saan oo kale loo soo kiciyaa marka hadaan fiirino casharkeena wuxuu ku leeyahay waxyaabo kala duwan oo halkan ku sharaxaya waxyaabo kala duwan oo halkan ku sharaxaya so halkan waxa loo yaqaanaa Excel area workbook waa sheet-kii noo furan sheet 1 waa sheet-ka hadda noo furan halkan waxa loo yaqaanaa formula bar oo meesha ay ku soo qormi doonto Excel-kaaga active cell-kaaga waxa lagu qoro meesha uu ka soo qormay dabcan hadda active cell-kayga aniga halkan waa oo ah E5 mar walba column-ka waa E row-gana waa 5 marka active cell wax la yiraahdo sidoo kale wuxuu leeyahay rows iyo columns row maxaa ah halkan waa kuwa nambarada kala ah 1 2 3 kuwaas ay rows ay raxan kuwa rows columns maxaa ah A B C D hadii aad u weydiiyo marka rows maxaa ah marka halkan la joogo Excel-ka waxa loo yaqaan rows kuwa oo ah horizontal-ka ah kuwa vertical-kana column waa kuwa taagtaagan marka waxa la yiraahdaa marka Excel la joogo rows waxay ku calaamaysiin 1 2 3 oo kuwana columns-kana waxay ku calaamaysiin ABC ku calaamaysiin marka hadii lagu yiraahdo halkan waxay gudkaas maxaa waa active cell-kaas waxa loo yaqaan A1 waa sababta halkan name box waa meesha ay ku soo qormaysa active cell-ka magaca uu ku qormaa halka hadaa fiiriso A1 waa A1 maxaa waa name box-ka muxuu muujinayaa column-ka A row-giisa 1 waa halkan haddaan halkan tago wuxuu dhigi doonaa B1 B column-keeda row-geeda koowaad haddaan halkan iraaho waa B column-ka laakiin row-ga wuxuu yahay row-ga labaad row koowaad waa kana oo halkan hadaa tago waa A1 halkan hadaa tagana waa A2 halkan hadaa tagana waa A3 halkaas haddaan halkan tagana waa C3 halkan hadaa ku dhufto name box halkan oo ka soo muuqana adoo halkan fiirina sheegi kartaa laga rabaa marka haddaan halkan aan tago waa D1 halkan hadaa ku dhuftana waxa halkan ku soo qormi doonto E1 wala iska fahmi kartaa marka name box-ka waxa la yiraahdaa meesha ay ka soo qormayaan column-kaaga iyo row-gaaga intersection point-ga meesha aad taagan tahay ayaa active cell loo yaqaan hadda saan column-ka waxaan taaganahay E row-gan waxaan ka taaganahay row-ga 8aad haddaad intaas aadan fahmin xisaabaadka iyo calculation-ka Excel-ka aan ku sameyn doono gabi ma fahmi doontid marka isku day inaad hadda waxaan fahanto haddaad fahmin video ku cesho dib u sharaxaada u dhageyso so E waa column-kii waxaan soo sheegnay waxaan A B C D E F G H waxaan waa soconayaan A B C dan way soconayaan inta column ay yihiin inta row yihiin waa noo soo socdaan marka column-kan waa E xageen ka taagana row-geeda 8aad baan taagana marka waxa loo yaqaan waa E8 waa E8 haddii halkan taagana waxa loo yaqaan waa E6 E column-ka waa E row-gana waa 6 meesha ku qoran yihiin waxa loo yaqaan name box oo wuxuu tilmaamaa E6 column-ka waxa ka taagan tahay E row-ga waxa ka taagan tahay 6 saas waa halkan hadaa tagtid waa K3 K waa column-kii row-gina waa 3 waa sax waa K3 halkan name box-kaas la yiraahdaa formula bar maxaa la formula bar waxa loo yaqaanaa meesha active cell-kaaga qiimaha lagu qoro ee ka soo muuqanayso tusaalahan kale hadaa ku qoro 1 2 3 halka ay ka soo muuqanaa waxa loo yaqaanaa name box waxa loo yaqaanaa formula bar meesha lagu qoraayo qiimahaas waxa loo yaqaanaa active cell godka qiimahaas uu ku jiro magaca loo yaqaan hadii ku yiraahdo 123 godkaas name box-ka ku jirto box-ka ku jiro magaciisa sheeg waxa ay sheegi kartaa waa column-ka G row-giisa 7 waa G7 waa sax waa
waa inaad saas u fahantaa qiimahan. Hadhow marka qiimo kale halkan lagu dari doonaa oo ah 44 xaguu ku jiraa marka 44 xaguu ku jiraa waa I5 waa hadda hadda ku dhufan jira I5 marka haddaan isku darayno kuwan I5 iyo G5 aan isku daraa marka hadhow saasaan samayn doonaa. waa inaad fahantaa marka formula bar maxaa la yidhahaa waa meesha value qiimaha oo ku storgaraysan active cellkaaga. Nameboxna maxaa la yidhahaa waxuu lefti ka jiraa formula barkaaga. lefti xaguu ugu jiraa formula barka waa kana left formula barka waa kana left dhinacaan ugu jiraa nameboxka. waxaas waa sharaxaad muhiimadda waa in practice-ka adiga aad fahantaa. active cellkaaga waxaa loo yaqaana waa selected cell. cellka la doorto waa daatada kaasoo la gelinayo ayna ka bilaabanayso yani qoraalkaaga. waxaa Excelka u cad yahay waxaa ku cad Excelka in active cellkaaga kaliya hal cell at once aad active ku noqon karo. so inta hadda wax ku qoraysid meesha wax kuma qori kartid sida wordka oo kale ma ahan meelo mucayan wax kuma kala qori kartid mar walba hal cell wax ku qori kartid active ku noqonaa. okay so waxaan u baahanahay marka formula bar waxaa loo yaqaana column. waxaa loo yaqaana column waa soo sheegnay waxaa loo yaqaana column waa vertical kuwa taagan waay oo ku level garaysan ama ku calaamadaysan letterska oo ABC da columns kuwaas loo yaqaana. waxayna ka kooban yihiin 16384 column. row kuwa waa horizontal oo ku jiifo waay oo 1 2 3 4 5 ka ah waxayna ku calaamaysan yihiin by numbers nambaro waxayna gaarayaan 10 milyan waxay gaarayaan 10 milyan 48576 waay ya aad u badan yahay rowskiisa columnskiisa marka waa waxyaabo aad u badan waay. sheet aa jiro sheet maxaa loo yaqaanaa namebox maxaa loo yaqaanaa nameboxna waa naqaanaa waa meesha cellkaaga qiimaha ku qoran godka uu ku jiro magaca uu qaadanayo loo yaqaan formula bar sidaan u soo sharaxay. waxaan marka columnska meeqa gaarayaan 16000 ay gaarayaan haddaan saan u wadno 16000 ay gaarayaan macnaha waqti badan aan qaadayna marka dhamaadkiisa inaan gaarno saas hadaa u wadno ma gaarayna ma dhamaanayo wax tiro badan waa 16000 intaan gaarayna ma dhow. marka haddaan rabno inaan si fudud ku tagno waxaan dhihi karnaa control aad qabanaysaa fallaarta dhinaca midigta ayaad u riixaysaa in dhamaadka aad tagtid u baahan tahay waa XFD u gaaraa. hadda inaad soo laabatirto control iyo waxaad isla qabanaysaa fallaarta dhinaca gacantaada bidix aadaysa oo keyboardka ku qoran. keyboardka fallaarna kor ay u jeedaa fallaarna hoos u jeedaa fallaarna gees u jeedaa. control intuu qabatid waxaa samaysaa fallaarta dhanka bidix aadaysa aad qabanaysaa. hadda ayaan ku soo laabtay inaan meesheedii ku laabto daarbana eedaan taabanaa control la taabanaa waxaan taabanaa control fallaarta dhanka midig aan taabanaa. hadda inaan ku soo laabtana fallaarta dhanka bidix hoos inaa aad haddaan rabo oo sababtoo ah row waxaa la yidhi kuwan rowga 1 2 3 4 5 6 7 ilaa waxay gaarayaan 10 milyan 48500 iyo intaasay gaarayaan. marka inaan soo arko haddaan u baahanahay saan hadda inaan dhaho rabo maanta oo dhan marka waqti badan iga baxaa ma samayn karo. marka waxaa laga yaabaa 2 maalin 3 maalin 4 maalin 5 maalin inay ugu qaato inaan saan ku tago. hadda 200 baa mar hadda saas u qabo fallaarta aan hoos taabto marka si hal mar aan wada tago waxaan leeyahay control fallaarta hoosaan riixa waa kan 10 milyan wuxuu gaaraa 10 milyan 48576 gaaraa. inaad kor kusoo laabato haddaad rabtid control fallaarta kor aad taabanaysaa saas waa marka aad u fudud yahay marka laga hadlaayo in laiskugu kala gooshi karo markaa shortcutka isticmaalaysa. sidoo kale waxaad samayn kartaa control up control down labadaba dhihi kartaa. control iyo waxaad isla qaban kartaa page down control page down page up. haddaan control fallaarta hoose riixo hoosaad ku geynaa. haddaa home keligeed control iyo home isla qabatidna kor ku geynaa saas waa ya ayadana waa waxyaabo kale oo ku tegi karto last cell control end control home ayadana waa waxyaabo kale oo aad ku tegi karto. control haddaad inta qabatid meesha ay ku qoran tahay keyboardka mouseka keyboardka ku qoran tahay end aad riixid marka waxay ku soo gelinaysaa in meesha ugu dambaysta tagaysa. laakiin mar walba waxaa kaaga filan inaad control iyo fallaarta dhanka u socod. haddaa hoos u socod control iyo fallaarta hoos isla qabo. haddaa kor u socotayna fallaarta iyo control iyo fallaarta kor isla qabo. sidaas ayaa ku tagi kartaa. okay haddaan rabno inaan marka aan qiimaha oo numberska Excelka waxaan dhahnay columnskiisa wuxuu ku level garaysiin numbers inaan kuwaas ka dhigno. haddaan u baahannahay maxaan samaynaynaa waxaan tegaynaa kuwan oo kale columnskan haddaan rabno inaan lambara ka dhigno. hadda ABC ku level garaysiin see lambara looga dhigaa file aad tegaysaa waxaad kasii tegaysaa options waxaad kasii tegaysaa meesha ay ku qoran tahay formula waxaad kasii tegaysaa meesha working with formula ay ku qoran tahay waxaad sameynaysaa R1 C1 row 1 ka bilaabo column 1 ka bilaabo macnaha reference style-kaas check saaraysaa. hadda wax meeshan ku dhaca fiiri marka maxaa isbedeli doono 1 2 3 isku bedelay marka columnskaas okay le marka waa aragnaa columnskii oo ku level garaysan letterska inaan lambar ka dhigno. marka haddaan halkan tagno active cellkeena maxaa loo yaqaanaa godkan waxaa loo yaqaanaa column godkan waxaa loo yaqaanaa column columnka 2 waa rowgan 2 waa R2 wuxuu ku leeyahay R2 C2 saas ku sheegaa marka
halkan haddaad tagan wuxuu ku leeyahay r4 waxaa leeyahay wuxuu ku dhihi doonaa c1 wuxuu ku dhihi halkan haddaad tago rowga waxaa loo yaqaanaa row 1 waaye columnskan waxaa loo yaqaanaa column 4 waa kaas column 4 kaasaa loo yaqaanaa waxaan ku yidhahaa waxyaabaha kale la xiriir marka waxyaabaha aan aragno waxaa kamid ah tusaalehaan kuwa number in laga dhigay number haddii aan rabno in aan ka dhigno maxaan ku yidhaha ishak letters waxaan tegaynaa options waxaan kasii tegaynaa halkan formula group formula waxaan kasii tegaynaa working with formula waxaan ka dooranaynaa r1 c1 ajee ka qaadinaa okay aan leenahay kadib a b c kusoo laabana see tabiskan loo qoriyaa groups ka hoos yimaada tusaalehaan oo kale home tab insert tab page layout formula data review iyo view kuwaas oo kale tabka home hoostiisa oo kale waxaa yimaada home tab oo kale waxaa hoos yimaada clipboard font alignment number style sales iyo editing kuwaas hoos yimaada inaan qariyo haddaan rabo isagaan double click ku siinaa ama sidoo kale waxaan samayn karaa double click asaan ku siinaa si uu usoo furmo ama waxaan tegi karaa halkaan aan tegi karaa si aan u qariyo groups ka hoos yimaada markaan ku dhufto waxaan leeyahay auto hide ribbon oo ii qarsooma si aan usoo bandhigo haddana waxaan sameynaa asagii aan tagaa waxaan sameynaa show tabs and comments ayaan dhihi karaa wuu soo baxaa marka ama waxaan samayn karaa control iyo f1 as la taabana control iyo f1 saasna waa ku qari karaa another option okay see documenti cusub loo abuuraa see documenti loo furaa see documenti loo xiraa see loo save gareeyaa see password loogu xiraa marka aan fiirina marka qayb ka mid ah intaas see documenti documenti cusub loo abuuraa click new aan leeyahay mid cusub aa ii furmaa oo hadda mid kaleeta ayaa furmaa documenti kale oo buugwana marka sidee loo save gareeya haddaan u baahanaana waxaan samayn karaa save aan dhihi karaa ama save as labada mid kaan lagu dhufan karaa saa u save gareeya meeshaan rabaan dhigaa computer aan dooranaa browse aan leeyahay desktop haddaan u baahanaa desktop ayaan dooranaa kabacdi magac ayaan ka bedeli karaa waxaan dhihi karaa xisaabta shirkadda kaasaan ku qori karaa waa save gareynaa marka magacii halkaan oo kasoo muuqana haddaa aragtid xisaabta shirkadda qaybta ugu koreysa waa sida magaca loogu save gareeyo magaca haddaan inaan ka bedela u baahanahay rename yani file different name inaan ku save gareeyo haddaan u baahanahay f2 alif na waa riixi karaa qaybta kore ay ku qoran tahay f2 alif keyboardka ayaan ka riixi karaa f12 oo ah qaybta ugu sareeya keyboardka ku qoran tahay f12 ama waxaan dhihi karaa waxaa lamid ah save as lamid ah intaa click file aan save as browse aan iraaho magac waa ka bedeli karaa xisaabta shirkadda xisaabta maalinlaha save aan dhihi karaa wuu isbedelaa marka xisaabta maalinlaha ah waad aragtaa ama saasna waa la save gareyn karaa see file loo xiraa close aan leeyahay marka asaa inta tugo filekii xirmaa marka see u xiraa file aan taga waxaan dhahaa close aan ku dhufanaa close markaan ku dhufto ma save gareyn rabta haddaan save gareyn rabo yes aan leeyahay haddaan save gareyn rabin aan dan ka lehna don't save aan leeyahay saas ayaa aan u samayn karaa marka see you next lesson insha allah lessonka xiga iyo sida passwordka loogu xiro ayaan arki doonaa iyo sida loogu furo halkan waa macadka barashada kombiyuutarada sii kor magacay waa injineer cabdiraxmaan cabdalla